kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii xog waran iyo maanta waa maalmo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay 31 bisha 8 sanadka 2020 qodobada wararka warkeena koowaad maanta inuu haynana waxaa kamid ah xildhibaanada golaha shacabka oo 2 toddobaad kadib maanta kulan yeelanaya haddaba maxay ugu hadlayaan kulankooda maanta madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland oo la filayo inay maanta soo gaaraan magaalada Muqdisho ciidamada maamulka Jubbaland oo xabsiga dhigay in ka badan 20 ruux haddaba dadkaasi maxaa lagu xiray duulimaadkii u horeeyay oo kala kooji doona Israa'iil iyo Imaaraadka oo bilowday kadib markii dhawaan heshiis ay gaareen Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta madaxweynaha wadanka Lubnaan oo ku baaqay in dalkiisa uu qaato nidaamka cilmaaniga iyo dibadbaxyo xooggan oo weli ka socda wadanka Belarus qodobadaas iyo qodobo kale daawadayaal barnaamijkeena xog waran ay uga bagi doontaan mar kale ku soo dhawaada qodobadaas oo faahfaahsan fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka warbaahinta xog waran subscribe saar channelka gambalka riix si aysan kuu seegin wararkeena dambe mahadsanid aan ku bilaabay xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa inay kulan ku yeeshaan xaruntooda ku meel gaarka ah ee Villa Hargeysa ajandayaasha kulanka maanta ayaa waxay kala yihiin akhrinta koowaad ee hindisa sharciyeedka adeegyada baaritaanka beeraha Soomaaliyeed iyo akhrinta labaad ee hindisa sharciyeedka hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha hindisa sharciyeedka ayaa waxaa soo diyaarisay wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kale xildhibaanada golaha shacabka ayaa lagu wadaa inay akhrinta labaad ay marsiyaan hindisa sharciyeedka hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya ayaa xalay waxaa lagu wargeliyay inay maanta uu jiro kulanka baarlamaanka isla markaana laga doonayo inay kulanka soo xaadiraan si uu furmo muddo 2 toddobaad xildhibaanada golaha shacabka ma jirin wax kulan ah oo ay yeesheen waxaana hakad ku jiray fadhiyada kalfadhiga toddobaad sababo aan weli la shaacin dartooda madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa maanta waxaa la filayaa inay soo gaaraan magaalada Muqdisho madaxweynayaasha maamulada Jubbaland iyo Puntland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta la filayaa inay soo gaaraan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya qabaqaamada soo dhaweynta wufuudtan ayaa waxaa laga dareemayaa magaalada caasimadda ee Muqdisho sida uu qorshuhu yahayna madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland ayaa Muqdisho u imanaya wadahadallada arrimaha doorashooyinka dalka wadaxaajoodkan oo beesha caalamka ee garwadeen ka tahay ayaa waxa yeelan doona madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland wararka aanu helayna ayaa waxa ay sheegayaan in kulanka uu ka dhacayo xirada Xalane ee fariisinka ugu weyn ay ku leeyihiin dulmaasiyiinta dalalka caalamka ma cadda haddii shirkan uu yahay mid ku kooban 3 dhinac ama inay gadaal uga soo biiri doonaan hogaamiyaasha Galmudug Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle oo iyagu qayb ka ahaa natiijadii ka soo baxday shirkii Ruusamareeb 3 dhinaca kale ciidamada maamulka Jubbaland ayaa xabsiga waxa ay dhigeen in ka badan 20 ruux howlgallo magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland ay ka sameeyeen ciidamada booliiska Jubbaland ayaa waxa la sheegay inay ku qabqabteen tiro dad ah oo la sheegay inay ka ganacsanayeen waxyaabaha maanka dooriya howlgalka ayaa ciidamadu waxa ay si gaar ah uga sameeyeen xaafadda Calanley ee magaalada Kismaayo waxaana booliisku ay sheegeen in lagu qabtay maandooriyaha xashiishka khamriga iyo dadka ganacsanayay taliyaha booliiska ee magaalada Kismaayo ayaa waxa uu sheegay in howlgalka uu ka dambeeyay kadib cabasho ay u soo gudbiyeen dadka ku nool xaafadda Calanley ee magaalada Kismaayo isla markaana ay gacanta ku dhigeen 20 ruux oo falkaasi gacanta kula jiray waxaana uu sheegay in dadka la qabtay ay u gudbin doonaan maxkamadda Jubbaland si cadaalad loo marsiiyo isagoo uu sheegay in waxyaabaha maanka dooriya ay qayb ka qaataan falalka amni darro ee ka dhaca magaalada Kismaayo maalmihii la soo dhaafay ayaa waxaa qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool xaafadaha qaar ee magaalada Kismaayo waxay ka cabanayeen in maandooriyaha khamriga iyo xashiishku ay ku soo badanayeen xaafadahooda weli waxaa nagala socotaan warbaahinta xog waran wararkeena kalena waxaa kamid ah markii ugu horeysay taariikhda waxaa saaka lagu wadaa in duulimaad rakaab ah oo ka soo kici timay Israa'iil uu soo caga dhigto dalka isku taka Imaaraadka Carabta kadib markii labada dal ay caadi ka dhigan xiriirka u dhaxeeya diyaaradaasi ayaa waxaa raaci doona wafdi ka socda Israa'iil iyo saraakiil Mareykan ah kuwaas oo gacan ka geystay gaaridda heshiiska nabadeed heshiiskaasi ayaa kii saddexaad ee Israa'iil ay la yeelato dal Carbeed
kelmadda nabadda oo ku qoran luuqadda Carabiga iyo Ingiriiska ayaa lagu xadhay diyaarada ay leedahay Israa'iil, waxaana sii raaci doona mas'uuliyiin ka tirsan Israa'iil kuwaas oo si rasmi ah u furi doona safarada dalkoodu ay ku yeelanayso Imaaraadka Carabta si ay u sahasho isu socodka ganacsiga u dhexeeya labada waddan. Wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in la taliyaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ahna wiil uu sodog u yahay uu hogaamin doono wafdigaasi. Isku taka Imaaraadka Carabta ayaa toddobaadkii hore soo afjaray cunaqabataynta ganacsiga ee uu ku hayay Israa'iil. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo kulan la qaatay la taliyayaal ka tirsan aqalka cad oo ka mid ah wafdiga raaci doona diyaaradda ayaa waxa uu sheegay in dalkiisa uu wada hadallo qarsoodi ah kula jiro wadamo kale oo Carab ah, waxaana uu sheegay inuu filayo in dalalkaasi ay mari doonaan dhabaha Imaaraadka oo kale, isagoo intaasi raaciyay in Falastiin aanay hadda kadib ahaan doonin waxa ugu yeeray go'aanka qayaxan oo ay ku horjoogsadaan nabadda. Markana Lubnaan, madaxweynaha waddanka Lubnaan ayaa waxa uu ku baaqay in dalkiisa uu qaato nidaamka cilmaaniga. Madaxweynaha waddanka Lubnaan Michel Aoun ayaa ku baaqay in dalkiisa uu qaato nidaamka calmaaniyadda, kaasoo uu ku tilmaamay inuu yahay qaabka kaliya ee lagu ilaalin karo waddaniyadda isla markaana midnimo dhab ah looga hirgelin karo waddankaasi. Masar Aoun ayaa waxa uu sheegay in awood qaybsiga ku saleysan diimaha ay dalkaasi ku habboonayd 1980-kii, xilligaasi oo dalkaasi uu ka soo baxay dagaal sokeeye, balse hadda ay caqabad ku tahay horumarka iyo dagaalanka musuqmaasuqa. Waxaana uu ka hadlay sanad guurada 100aad ee ka soo wareegtay aasaaskii waddanka Lubnaan. Ugu dambeyn, haddii aan eegno waddanka Belarus, dibadbaxyo xooggan ayaa weli waxay ka socdaan dalka Belarus. 10,000 oo ruux ayaa weli waxa ay dibadbaxyo xooggan ay ka dhigayaan wadooyinka dalka Belarus iyagoo ka soo horjeeda madaxweynaha waddankaasi. Dibadbaxayaasha ayaa waxay madaxweynaha ku weydayeen inuu ku shubtay doorashadii ugu dambeysay ee waddankaasi ka dhacday 2 toddobaad ka hor. Masar Alantaro, madaxweynaha waddankaasi ayaa waxa uu waddankaasi maamulayay muddo 26 sano ah, iyadoona doorashadii ugu dambeysay ay noqotay tii 6aad oo xiriir ah oo uu ku guuleysto. Kooxaha mucaaradka ayaa waxa ay ku baaqeen dibadbaxayaasha inay sii wadaan mudaharaadyada tan iyo inta uu iska casiliyo madaxweynaha. Guud ahaan daawadayaal, intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeennii xog waran iyo maanta. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka warbaahinta xog waran, subscribe saar channelka, gambaleelkana riix si aysan kuu seegin wararkeena dambe. mahadsanid.